kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawada doontaan waxaa kamid ah taliska booliska Soomaaliya oo bandow ku soo rogay Muqdisho xilli la dooran doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya warar dheeraad ah oo laga helayo ololaha doorashada iyo halka la kala marayo iyo qaybta dambe warkeena waad ku daawad doontaan warbixin ku saabsan Saciid Dani ma waxa uu tartamayaa xil madaxweyne mise ra'iisul wasaare qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24 saacan u baahin doono aragtidiina halka oo noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bandow ku soo rogeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xilli la dooran doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday in laga bilaabo 9 fiidnimo lagu soo rogay bandow magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaas oo ku ekaan doono aroorta hore ee Isniinta afayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa fariintan u diray shacabka Soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay inay deganaan muujiyaan isla markaasna ay dul qaataan inta ay dhacayso doorashada madaxweynaha sidoo kale wuxuu ka dalbaday inay soo adeegtaan shacabka isla markaasna ay guryahooda ku nagaadaan inta ay xiran yihiin wadooyinka Muqdisho waxaa laga maarmaan noqotay in la sugo ammaanka guud ee dalka xilliga lagu guda jiro doorashada madaxweynaha ayuu yiri gaashaan Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaana intaasi ku daray in ciidamada ammaanka la geliyay heegan buuxda isla markaasna ay adkeyn doonaan ammaanka inta ay socoto doorashada sida uu qorshuhu yahay doorashada madaxweynaha ayaa dhacaysa maalinta berita oo axada kuna beegan 15 bisha May ayadoo loolan adagna loo gali doono xilka madaxweynaha magaalada Muqdisho ayaa haatan laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ku aadan doorashada madaxweynaha ee dhacaysa isla wararkii la xiriiray doorashada ayaana ku guda jirnay warar dheeraadna waxaa laga helayaa ololaha doorashada iyo halka la kala marayo ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta gashay maalintii ugu dambeysay ka hor doorashada oo dhacaysa maalinta berita waxada waxaa xoogeystay dadaalka ay wadaan musharaxiinta ay ku raadinayaan codadka xildhibaanada ayada oo xildhibaanaduna ay isku marayaan musharaxiinta ugu xoogan oo marba ay taagan yihiin xarunta ololaha musharax gaara arinta yaab kale ayaa in ilaa iyo haatan uusan jirin musharax bixiye lacag sidii hore caadada u ahayd balse waxay u badan tahay in hadiiba la bixinayo inay noqoto saacadaha nagu soo aadan sida ay ilaa iyo haatan wax u socdaan waxaa loolanka ku horeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marka laga tago madaxweyne Farmaajo oo Xasan Sheekh ayaana saacadii ugu dambeeyay ay u jabeen xildhibaano ka soo kala jeeda Somaliland iyo Koonfur Galbeed halka uu hore u haystay inta badan xildhibaanada Hirshabelle iyo Galmudug kasoo Xasan Sheekh musharaxiinta kale ee la filayo inay wareega koowaad ka soo gudbaan ayaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Saciid Dani iyo madaxweyne Farmaajo oo isagoo shakhsiga kaliya ee la dareensan yahay inuu tagi karo wareega ugu dambeeya ee doorashada waxaa sii dhamaanaysa rajada Xasan Cali Qere oo xildhibaano badan ay u arkaan inaan hogaanka dalka lagu aamini karin marka la eego diiwaankiisa ra'iisul wasaarnimo aanu helnay ayaana sheegaysa inay u badan tahay inay wareega ugu dambeeya doorashada isku wajahaan Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ama Xasan Sheekh iyo Farmaajo haddii aysan waxba isbedelin saacadaha ugu dambeeyani inkasta oo Saciid Dani la rumaysan yahay inuu ka soo gudbi doono wareega koobaad haddana xogta aanu helnay ayaa sheegaysa inuusan rajo ka qabin xilka madaxweynaha haddana xooga aanu helnay ayaa sheegaysa inuusan gudbi karin wareegyada kale Dani ayaana la rumaysan yahay inuu taageeri doono madaxweyne Xasan Sheekh oo ay aad isku dhow yihiin madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed ayaa dad badani ay rumaysan yihiin inuu guuleysan karo haddii uu ka soo gudbo wareega koowaad isla markaasna uu noqdo mid kamid ah saddexda musharax ee ugu codadka badan si kastaba Shariifka ayaa laga cabsi qabaa inuu galo kaalinta afraad taas oo ku khasbi karta inuu haro madaxweyne Xasan Sheekh dhankiisa ayaa la filayaa inuu wareega koowaad galo kaalinta koowaad ama labaad waxaana la saadaalinayaa inuu ka adkaan karo musharaxiinta kale ee dhan marka laga reebo Shariifka iyo Farmaajo oo la sheegay mid kamid ah haddii isku haraan inuu halis wajihi karo xaaladda ayaa haatan mid saacada ka dambeysa sii yeelanaysa xamaasad waxaana markasta abuurmaya isbahaysiyo cusub taas oo xaaladda si degdega u bedeli karta وهاجي داود يالي مكانه وحنو ايجينا سعيد دني ما waxa uu u tartamaya xil madaxweyne mise ra'iisul wasaare Saciid Cabdullaahi Dani waa musharixii labaad ee isagoo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ah u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya
kadib allah u naxariistay korneel cabdulaahi yuusuf axmed oo 2004 sidaasi sameeyey. Siciid Cabdulaahi Dani waa siyaasi wasiir ka soo noqday dowladda federaalka, wuxuu hore ugu tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya balse doorashada 2022 waa musharax ka duwan sidii hore. Wuxuu dagaal aan waxba la iskula harin la galay madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa isagoo hogaamiye u ahaa mucaaradka dowladda. wuxuu garab iyo gaashaan u noqday Axmed Madoobaha Jubbaland. ugu dambeyn wuxuu ku guuleystay dagaaladaasi qaar uu galay. musharax madaxweyne Siciid Dani sida uu ku sheegay khudbadii uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa in ujeedkiisu ugu weyn uu yahay inuusan Farmaajo mar kale ku soo laaban bila Soomaaliya, taas oo ka dhigan dhameystirka halgankiisa. inkastoo codad badan uu haysto soona saartay inta badan xildhibaanada labada aqal ee ka soo baxay Puntland iyo Jubbaland, Siciid Cabdulaahi Dani ma ahan musharax loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. inkastoo uu wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha gaari karo, haddana waxaa la rumaysan yahay in Siciid Dani halka ugu sareysa ee uu gaari karo ama uu raadinayo ee tahay isbahaysi cod iyo xil iswidaarsi ah oo uu la galo mid ka mid ah musharaxiinta ugu codadka badan wareegga koowaad marka laga reebo madaxweyne Farmaajo. musharax Siciid Dani waxaa la filayaa inuu raajicinayo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, dadaalkiisuna halkaas ku suntan yahay, kaas oo aan la damaanad qaadi karin marka la eego loolanka adag ee xilka madaxweynaha. waxaa la saadaaliyay inuu aad ugu dhow yahay isbahaysi uu la galo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna wajahaya tartan 3 gees leh oo adag, waa Farmaajo, Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Qare. si kastaba dadaalada uu wado Dani ayaa ilgaara lagu hayaa, waxaana laga dhuur sugayaa guusha uu raajicinayo oo ah in Xasan Sheekh uu guuleysto kadibna sidaas uu ku helay xil ra'iisul wasaare. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media, fadlan daawada haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 saacan u baahina aragtidiinana halka hoose noogu reeba, muuqaalkana sii share gareeya, laagtiinana waa inuu muhiim daawadayaal wana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka janalka dalka TV Media.